السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ومركز عشر كني يس والكان جنال كني ما أدبر إن شاء الله تعالى ولا هدي أنو حسبتها سبسكرايب ده جنبالك أسير ريح أول طابة إن شاء الله عشر وضوء اللي دون تقوم السيجي دونا أدي أن لجوكتينا سبسكرايب عايشة محوها لايك تنور طابة نوشير قراء إن شاء الله وادك فايدي دونتا أديقنا أنيقنا نوغا محان كل هذا نقول إن شاء الله تعالى كعاجسين فرط أوعاد كتابة لايك تا وحوين ما دبتو كومنت يرو عاد قرطو وحوين ما دبتو وحبان بي إن شاء الله تعالى جلسة وادي رجل مكينا إن شاء الله تعالى انت معليكم كتاب كله وحنت نور إن شاء الله تعالى عشان كده ما أنت وقاد وحيس بدين سندري ميو أصحاب تقارب haddii uu ku yara cuslaada dhib ma leh dulqaadka wasacab uu fudud yahay sababta qaar hadduu ku jilcanado macnaha fudayd noqdana din dulqaadka dad buu ku culus yahay marka insha allah tacaala iska sheergaraya dadku way badan yihiin ninba sibuu ah markay ku yahay cashirka maaha inaan u wada simannahay ku wada culus yahay ama ku wada fudud yahay maaha insha allah let's just share all and wadaagna insha allah whatever it is aad ayuu xiisa badan yahay wuxuu u dhexeeyaa maamo iyo gabar Siham la yiraahdo maamada dabcan madam ay tiri waa gabar mas'uula ee ay wax ka doonayso insha Allah marka qofka markuu mas'uul yahayna martabadiisa ayaa lagu magacdaraa inta badan loogu yeeraa saade madam de marka insha Allah taala mas'uuliyad leewa waaye conversation Siham excuse me madam yes my daughter Siham, can I see you once? Yes, Mom. Whenever you like, you can come to me, either in the office or at home. Okay, Madam. Thank you very much. I shall visit you tomorrow, if God says. Okay, call me before you leave home to know where I am. Okay, no matter. Have a nice time. Have a nice time too. Wada sheekaysi conversation. Siham waa gabar magaceed waxay leedahay gabadhu excuse me iga raali ahow excuse halkaas walaalayaal dadka markii oo aad midlaan qof rabto inaad hadal ku bilowdo qofka waxa loo eegaa halka uu ka joogo hadduu garabkaaga iyo qof kula siman oo manaa kula da u yahay walaal ama walaashay baad haysaa hadduu ka weeyahay adeer iyo waxa kelmado macnaha xurmad leh yaad ugu yeeraysaa ama abade ama adarde ama maxaan ku raay eedade muxuu ahaa hadba qofka intuu ka jooga hadii qof waalidka ka weyn oo kale uu yahay oo midna waalidka dhalay kala qiyaasta awow ama ayay ama hadgaas mana waxa la rabaa isha qofka aad ka aragto inaad ku maxaan ku raay tixgeliso aad ugu yeerto insha Allah ereyga wad u haysaa marka ma weynaysid laakiin marka qof u yeeraysa inaad hooy tirahay iyo inaad gabar wiil iyo maxaan waa ay sheegeen ninkii waxa soo kale kelmada noocaas oo kala wax xurmad ah ma laha marka qofka marka soo joodinaysa hadda gabadhan fiiri excuse me iga raali ahow beelad excuse me iga raali ahow madam marwo ama mudane qofkii markaad kelmad qabow kula hadasho uu ku soo dareemaysa uu soo dabcaya oo dhagtu ku dhigaya madam marwada ayaa soo bad waxay tiri yes my daughter haya gabadhii yes my daughter haya gabadhii Siham ayaa waxay leedahay can I see you muku arki karaa kan ma awooda ay aniga see inaan ku arka you adiga once mar mana ma kula kulmi karaa weeyaan maamada markay tiri yes my daughter gabadha dhashay leedahay yes my daughter gabadheeda kale ka dhigata mana yes my daughter haya gabadhii can I see you muku arki karaa once hal mar halkan once baleda mar way tiri mom yes mom hoyo yes mom hoyo whenever markasto you like aad jeceshahay you can come wad igu iman kartaa to me aniga either amase in the office xafiiska dhexdiisa oo amase at home guriga maamada fiirsi wadlaysa mom way tiri madam way halkan yes mom hoyo
yes mom haye hooyo whenever markasto when markaste when markii ever kasta way whenever markasto you like aad jeceshahay you can come you adiga can waxaad awoodaa way can awood way come inaad ugu imaada to me aniga either amase in the office xafiiska you adiga can waxaad awoodaa come inaad ugu imaada to me aniga either amase in the office xafiiska oo amase at home guriga Siam ayaa waxay leedahay okay haye okay hagaag madam marwo ama mudane thank you waad ku mahadsan tahay very much in badan thank you very much aad baad u mahadsan tahay thank you very much waad aad baad u mahadsan tahay very much in badan I shall visit waan soo booqan doonaa shall doonaa way mustaqbalka visitna waa booqasho I aniga shall visit waan soo booqan doonaa booqashada waa tana doonana waa tana I shall visit waan soo booqan doonaa you adiga tomorrow biri if haddii God alle says uu yiraahdo if God says hadduu alle yiraahdo if God says waa dhihid mana if God says hadduu alle yiraahdo God waa alle ama Allah subhanahu wa ta'ala I shall visit waan booqan doonaa you adiga doonada marka waa shall visit no booqasho I shall visit you waan ku soo booqan doonaa tomorrow biri if haddii God alle says you hadduu alle yiraahdo if God says hadduu alle yiraahdo if God says hadduu alle yiraahdo madam ayaa qaatay waxay leedahay okay hagaag call me isoo wac call me ani isoo wac before ka hor you leave intaadan kasoo tegin home guriga leave waa tegid markaad guriga ka baxaysa ama aad ama baxaysa leave adi I'm leaving waan tagayaa baad leedahay leave call soo wac me aniga call me isoo wac before ka hor you leave intaadan ka tegin home guriga to know saad u ogaata where meesha I am aan ahay halkaan joogsa oo xafiiska baan jiraa ma guriga baan jiraa saad u ogaato call me isoo wac before you leave home intaad guriga kasoo tegin leave waa tegid home na waa guriga leave home intaad guriga kasoo tegin to know saad u ogaata know waa ogaasho kaydaas waa silent know where meesha I am ana to know where I am meelaan jooga saad u ogaato waayahay Siam ayaa tiri okay hagaag no matter dhib male no matter wax dhib ama laha madam have a nice time waqtiga ku wacnaado have a nice time too waqtiga ku wacnaado sidoo kale ayay maamadina tiri ama gabadhi tiri insha Allah ta'ala thank you very much for listening